الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan maanta joogaa muqdisho bishii Febraayo 7 talaada waxaan joogay aniga iyo waftiga ila socday oo Puntland ka yimi doorashada madaxtinimada Soomaaliya ay soo raacay 2 wiig iyo bar baan joognaa. alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baa naloo ku soo dhaweeyay muqdisho shacabka degan iyo madaxda degan intaba soo dhaweyn qiimo iyo qaaya leh oo aan raalli ka noqonnay. casumaado badan baa naloo sameeyey ay ugu horeyso gobolka Banaadir oo anigu aan gaar u tirsan jiray oo aan deganaan jiray haddana aan maanta joogo. aad bay noogu soo dhaweeyeen uga mahad celinaynaa. waxaa kaloo na soo dhaweeyey oo na marti qaaday murashaxiin badan oo ugu horeeyo xasan sheekh ay ku xigaan murashaxiinta kale oo isbedelka ka mid ah ay ku jiraan iyo dad gaar ah oo asxaab ah intaba. dadka muqdisho waxaanu ku aragnay dad Soomaaliyeed oo bisil ayaan ku aragnay oo waayihii hore aan la mid ahayn oo lagu kala yaacay meesha. waxaan rajaynaynaa inay magaalada xamar oo maanta burbursan ay sideed u soo noqoto baan rajaynaynaa insha allahu tacaala. waxaan soo dhex maray magaaladii qadiimka ahayd xamar weyne, shingaani, boondheere iyo shibis qayb ka mid ah. waa intii magaalada iyo boondheere intii qayb magaalada intii qadiimka ahayd weeye iconka wax loo yaqaan ahayd oo ah magaalada Syria oo caan ka ahayd oo burburtay la mid ah oo la oran jiray Xalab. waxay u baahan tahay in dowlad Soomaaliyeed oo qaran haday dhisanto oo wax ku ool dalkan ah in loo sameeyo Jarmalkii burburay oo kale Marshall Plan magaaladii qaybtii qadiimka ahayd oo qarnigii 11aad taariikhdiisa dhisantay iyo wixii ka dambeeyay intii dowladda isticmaalka ay joogeen xafiisyadii ugu badnaa dowladuna ay ku yiileen. intaas haddii aan ka gudbo tartankii doorashada halka aan nimi oo aan ka mid ahaa murashaxiinta isbedel doonka oo badan aan ka mid ahaa. waxaan idin sheegayaa inay jiraan murashaxiin tiro badan oo issharaxday oo anigu aan ka mid ahay oo ay sababtay maamul xumadii ay madasha qaranka samaysay qaabkii doorashada. murashaxiin maamul xumada madashu ay samaysay ayay ku timi in dad badan u tartamaan hoggaanka dalka, dad badanna u tartamaan baarlamaanka inay soo galaan oo anigu ka mid ahay. anigu laba sabab bay ahayd. madamaan ahaa ninkii federeeshinka Soomaaliya si Soomaaliya dib loo soo nooleeyo hogaaminayay oo markuu maamulka Puntland madaxda ka ahaana guddigaha u ahaa ilaa Djibouti 1991 dibadda ka soo waday. maanta waxaan ahay senatore oday ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed oo aqalka sare oo ka shaqayn doona dib u soo celintii jamhuuriyaddii federaalka Soomaaliya ayaan ka mid ahay. dowladda dhismaysana mar walba waa ku jiraya. waxaan maanta marka halka ka sheegayaa maamul xumadaas ay sababeen madashii waxay dhalisay tartanka tirada badan, waxay dhalisay xildhibaano cusub oo tiro badan inay soo galaan, waxay dhalisay xildhibaanadu in majaru ka habaabo inay garan waayaan dadku hadduu batay iday codkooda ku ururiyaan oo hoggaanka dalka ku aaminaan. faragelinta ay sababtay maamul xumadaas sheegayna waxay keentay waxaan hore loo arag in Soomaaliya doorashadeedii xiriirka caalamiga adduunku dowladuhu ku jira qaramada midoobay way wada leeyihiin mid goboleedna waa jira waa wax gooniya laakiin qaran dhisan oo sovereignty-giisa leh in doorashadiisa la maamulo oo loo soo guntado oo siyaasad ahaan loo soo dhexgalo iyo pressure iyadoo dadkii lala kala safanayo iyo in maalgelin lagu sameeyo xildhibaanada qaar oo ay kala soo baxaan cid walba cid iyada ay danaynayso. waa waxaan la arag waa wax dadka Soomaaliyeed dhammaantoodba u yaal. maamul xumadaas madasha qaarkood weliba khusuusan kuwa gobollada ka yimi oo iyagu ahaa buddigihii deegaamada federationka ahaa inay maanta ay misla intay qaarkood halka isugu yimaadaan. hal ninaa ka maqan baa la yidhi isagana aanan garanayn kolley sababtuu ku maqan yahay. hadduu wax wanaagsan ku maqan yahay ha sheego, haddii kalena ma hubo inuu ilaa shalay yimiye ha sheego inuu maqan yahay.
waxay ku dhex jiraan oo faraha kula jiraan waa waxaan loo dulqaadan karin weliba siiba kuwa ka yimi gobolka anigoo aan ka yimi oo puntland oo abaari ka jirto oo colaadi ka jirto oo carruurtoodii iyagoo wata xafiisyadooda biyantooniyaashooda iyagoo wata labadii aqal kii fulinta iyo kii baarlamaankaba ay socdaan madaxdoodii ay taagan yihiin xafiisyada iyo goob kasta oo nin murashaxa uu joogo dullaalnimo uu jooga isuna bedelay campaign managers oo kala qaybinaya xildhibaanadii inaan meel codkooda aadin ama ay cid ay ku kalsoon yihiin dooran aad iyo aad baan uga xunahay waxaan ugu yeerayaa dadka ay wakiilka ka ahaayeen oo kitaabka u mareen inay ka fiirsadaan dadkaas siday ka yeeli lahaayeen waddankiiyo abaara waxa ka jira aan ognahay intaa ka bacdi kol haddii ay bateen murashaxiintii xildhibaanadiina wareer ka dhacay waxaan soo jeedinayaa in arrintaa wax laga bedelo anigaana ugu horeeya oo ficilkaas wax ka qabanaya waxaan maanta go'aansaday inaan doorashada biri dhacaysa anigu shakhsiyan ka haro anigoo ula jeeda marka koowaad in murashaxiinta kale oo isbedel doonka ah iyaguna isa soo yareeyaan oo aada isu soo yareeyaan oo 24 saac ka yar baa ka hadhay ay ka baxaan in badan oo ka miday si ay u koobnaato dadka la dooranayo oo xildhibaanadu ay codkooda ku ururiyaan cidda ay ka doortaan inta is-hadhay ay ka doortaan waxaan kaloo aan soo jeedinayaa xildhibaanadu inay iyaguna ay marka fikirkooda dib u sameeyaan oo ay codkooda ayan ku bixin qabyaalad iyo jamciyado kala gaargaar ah oo qoloba meel caawa ujeedo aan la garanayn ay wadaynimo ku bixiyaan qabyaalad aan la-aan ay ku bixiyaan qofka ay ka doortaan inta hadhay oo markaas aniga iyo wixii kaloo ka baxa hartay ay ka doortaan waxaan ugu dambayntii aan aada iyo aad uga mahad celinayaa mar labaad dadkiina soo dhoweeyey iyo murashaxiintii nagu martigelisay iyo dadka jooga muxuu ahaye muqdisho waxaana ugu baaqayaa dadka shisheeye oo soomaaliya faraha kula jira faraha kala baxaan soomaali baa iska leh soomaali ma taqaanidin soomaali iyadaa isku ururta maanta weeye markii calanka dadka la taagi lahaa oo maanta hoggaankii dalka loo doori lahaa haddii kale xildhibaano laba jeer wax dooran maysaan codka aad biri leedihiin dalka ugu hiiliya iyo maslaxadda ummadda aniguna ilaahay hortiis marag baan ka ahaanayaa waana inuu ku ducaynaynaa kitaabka aad marteenna xusuusnaada kitaabka aan martay dartiis baana anigu maanta uga haray doorashada si aan fursad u siiyo ragga kale intaas aan sheegayna lagu dhaqmo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu